guddigii dugsiyada gaarka ah oo ahaa maamulayaashii milkiilayaashoodu ay yiraahdeen in aanu wada hadalay iyadoo sida loo yahay dadku ka wada dheregsan yahay ayaabaha kale xoogaa yabaqi uu jiray oo inaanu wada hadalay safkaradna gaadhnay waxaanu isla garanay markii aanu dhinac walba ka eegnay markii aanu tixgelinay duruufo badan oo ay soo jeediyeen markii aanu eegnay ku dadkayagu dhaliilo aanu isleenahay arrimoodee loo baahnaa inaanu ka taxadirno oo meesha ku jiray oo ay ka mid ahayd waqtiga aanu gelinay sheegnay ama wareegtada u diray ama amarka soo saaray oo waqti yara dambeeya ahaa oo ay ku hadleen dee waqtigu cidhiidhi ku ahaa waxyaala badan markii aanu tixgelinay waxaanu isla garanay oo aan ogolaanay inaanu dib u dhigno inaanu hore u soo qaadno waqtigii iskuullada la furayay meeshii aanu awal bisha September kowdeeda iclaaminay waxaanu ka dhignay 11 sanadka waa sanadkan 2018 weeye ayay ku kooban tahay arrintaasu horaan uu soo dhignay waxaanu ka dhignay bishan sabtidan soo socota meelta ka dambaysa bisha 15 keeda maalinta aan iskuullada private la furo ayaan isla garanay arrintaas sanadkan ay ku kooban tahay waxaanu ku heshiinay private-ku in aanu wasaarad ahaan soo saari doono calendar rasmi ah sanad dugsiyeed waqtiyadu shaqayma yihiin inaanu soo saari doono inayna taa ku dhaqmi doonaan wasaaraddu waxa ay soo saarto iminka wixii ka dambeeya inay taa raaci doonaan oo aan jiri doonin wax khilaafaad ah iyo wax dambe oo aanay daba socon doonin sidaas ayaanu ku heshiinay marka inaanu lagu wada socdo waxaanu ka qaadanay raaligelin ay nagu raaligeliyeen inay ku khaldameen mataqaanaa hadalladii ay ka sheegeen midyaha mariyeen ee ay telefishinada iyo ku tageen inay yara fududaadeen bay maxay qirteen بريهم مركا دول علوم قصتي بانو يرى حين